anxiety ama walwalka ama cabsida ama walaaca oo xanuun kamid xanuunada nafsiga hadana saas ay tahay ma ahan xanuun u gaar hal ama yani ma ahan xanuun u gaar hal meel badana wuxuu calaamad u yahay xanuun kasto nafsi ama ha ahaado xanuun nafsi qofka bulshada ku dhex jiri karo ama ha ahaado xanuun nafsi qofka bulshada ka dhex saari karo laakiin waxa jirto in marna oo yahay xanuun kaliya taagan marna oo yahay calaamad kamid xanuunada nafsiga yani qofka depression ka qabo wuu qabaa walwal qofka hallucination ka qabo ama psychosis ka wuxuu qabaa walwal yani walwalka marna calaamad waaye marna asaga xanuun laakiin mar walba waa walwalka midka caadiga ah ognahay ma aha mar walba yani in nolosha aba ku socotay in waxyaabo qaar laga walwalo laakiin hadii oo noqdo mid had iyo joogto ku xanuujinayo ama nolosha ka reebayo ama mugdi ku dareensiinayo ama u gaarsiinayo heer kala saar weysid xaaladahaaga ama jiritaankaaga ama joogitaankaaga markaas ay xanuun noqonay walwalka ama walaaca yani ma ahan mid sida oo aaminsanahay ay tahay qofka in ay u keeni karto iimaan la'aan ama diin la'aan waxa laga yaabaa dadkan walwalka iyo walaaca qabo ama runtii ay tahay in oo naga cibaado badan yahay asagoo markaas uga gol leh in ilaahay ugu dhawaado oo ka qaado walwalkan iyo walaaca saaran laakiin markii ay walwal iyo walaac ay noqoto waa xanuunada ilaahay kamid waana xanuun aad u xanuun badan yani aniga cilmi ahaan u leeyahay laakiin bukaano badan aan la kulmay heerka ay gaarsiiyeen waa heer aad u xanuun badan waxaan rajaynayaa inaad wax ka fahanteen waa mahadsantihiin salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu halkani waa xarunta Carefasol xaruntii ugu horeysay ee nooceeda ah ee lagula tacaalo dadka qabatiimay isticmaalka maandooriyaha lagana hirgeliyo Soomaaliya halkani ma aha xabsi ama goob lagu jirdilo dhibanaha ee waa goob uu ka helayo dib u kabasho dhameystiran waxaa sidoo kale u sameynaa bukaanka wacyigelin nafeed tababaro xirfadeed la talin caafimaad iyo ka dhaqista qabitinka maandooriyaha Carefasol saaxiibka dhibanaha wixii faahfaahin waxaad nagala soo xiriiri kartaan telefoonada shaashada kaga muuqda